Algeria waa wadan ku yaal waqooyiga qaaradda Afrika waxaana uu soo hodima la wadaagaa badda Mediterranean, Tunisia, Libya, Morocco, Saharaha Mauritania, Mali iyo Niger. Algeria waa dalka ugu weyn qaaradda Afrika iyo dalka tobnaad ee caalamka waxaana uu ku fadhiyaa bad gaadhay 2,400,000 kiiloomitir isku wareeg waxaana uu 4 jeer ka ballaaran yahay badka dalka Faransiiska. dadka wadankan ku nool waxaa sanadkan 2021 lagu qiyaasaa in ay ka badan yihiin 44 milyan. boqolkiiba 99 dadka dalkan waa muslimiin sunni ah. luqado kala duwan ayaa lagaga hadlaa dalkan balse luqadaha rasmiga ahi waa Carabiga iyo Amaaziqa. nidaamka dalkanina waa mid jamhuuri ah. gumaystaha Faransiiska ayaa dalkan soo caga dhigtay sanadkii 1830 waxaana uu dalkan ka dhigtay meel uu ku daadiyo dhiigga dadka reer Algeria kadib dagaalo badan oo u dhaxeeyay mujaahidiinta reer Algeria iyo gumaystihii Faransiiska. sanadkii 1954 ilaa 1962 waxaa ku shahiiday dad gaadhaya 1 milyan iyo badh Algeriyaan ah waana sababta dalkan loogu yeedho dalkii milyanka shahiid. ugu dambayn waxa ay Algeria xornimadeedii heshay 5tii bishii 7 1962 madaxweynihii ugu horeeyay ee wadankani waxa uu ahaa Ahmed Ben Bella. Algeria waxaa loo qaybiyaa 58 gobol. caasimada dalkan waa magaalada Algiers waana halka laga keenay magaca wadankan Algeria waxaana ku nool dad gaadhaya 2,809,000 waxaana ay noqotay caasimada dalkan sanadkii 1962. gobolka xeebta waqooyi waxa uu hoy u yahay boqolkiiba 90 dadweynaha dalkan halka inta soo hadhayna ay yihiin dad reer guuraa ah. in ka badan 1,700,000 oo Algeriyaan ah ayaa ku nool Faransiiska waxaana loo tixgeliyaa mid ka mid ah jaaliyadaha ugu badan ee ku nool cariga Faransiiska. qoraagii caanka ahaa ee Albert Camus oo ku guuleystay abaalmarinta Nobel Prize waxa uu sanadkii 1913 ku dhashay wadanka Algeria. Jabal Dahat waa buurta ugu dheer dalka Algeria waxaana lagu qiyaasaa dhererkeeda 3,003 mitir. lacagta rasmiga ah ee dalkan waa Algerian dinar. Algeria waxa ay ahayd gobol madax bannaan oo ka tirsan boqortooyadii Cusmaaniyiinta ka hor intii aanu Faransiisku qabsan caasimada Algiers. xayawaanka qaranka ee wadankani waa dacwada Fennec. Fennec waa dacwada ugu yar adduunka waxayna leedahay dhago waaweyn oo cabirkoodu gaadhayo 15.24 sentimitir. sanadkii 2019 Algeria waxa ay noqotay wadankii labaad ee Afrikaan ah oo si rasmi ah loo aqoonsado in xanuunka kaneecadu ka dabargo'ay kadib wadanka Mauritius oo noqday wadanka koobaad sanadkii 1973. xulka kubadda cagta ee Algeria waa mid ka mid ah xulalka kubadda cagta ee ugu wanaagsan qaaradda Afrika iyo wadamada Carabtaba waxayna 2 jeer ku guuleysteen koobka qaramada Afrika sanadihii 1990 iyo 2019. waxaa sidoo kale xusid mudan in ay dalkan asal ahaan ka soo jeedaan qaar ka mid ah xidigaha kubadda cagta saameynta badan ku leh sida Zinedine Zidane, Riyad Mahrez iyo Karim Benzema. miskid jaamaca Jazaa'ir oo la dhameystiray sanadkii 2019 waxa uu ku yaalaa dalkan waana masaajidka ugu minaarada dheer caalamka waxaana lagu qiyaasaa minaaradiisa cabir gaadhaya 265 mitir.